soo dhawaada saaxiibayaal mar kale maanta waxaa idin sharxi doonaa taxanaad xiiso badan oo la yiraahdo Duty After School wuxuuna soo baxay sanadii hore u soo dhaafin 2023 waxaa rajeynaa ka heli doonto taxanaheeni inta muuqaalkeeni gudaha ogal waxaa ka caawisina muuqaalka lana garajana kan subscribe aad dooro subscribe ku heen aad iyo aad ba u maasan tahay biliga taxanaha waxaa nala soo bandhigay school halkaasoo qof walba shaqadiisa ku mashquulsan yahay ardayda qaar fasalka waraaqada ku bixinayeen qaar kale dibadda ku ciyaarayeen kubadda laba ardayaas iyagoo mobiilahoodii iska fiirinaya waxayna ka sheekeysanayeen in sanadkii hore cirka laga arkay kubado buluug oo burbul ah markii ugu horeysay dadkii arkeen way ay baqeen markii dadkii arkeen waxayna dareemeen adduunku dhamaanayo dadka oo dhammi waxay isku dayeen wax ka ogaadaan kubadahaasi laakiin ma aysan ogaanin meeshay ka yimaadeen militariga sidoo kale isku dayay in ay burburiyaan laakiin weli siiteen laakiin markii sinisiyanada cilmibaaris badan ay sameeyeen waxayna ogaadeen in si jir waxa la soo kubadahaasi wataan oo waxyeelo hadda dunida kuma aha kadib wax walba si tartiib u hagaagayaan kubadihii waaweyn halista lahaa waxaa loo bilaabay in si fudud loo qaato markaas kadib waxaana la tusiyaa wiil yiraahdo jooga ka dagaya baska isigoo si toos u aad maqaaxida internetka halkaasoo ciyaaraha ku ciyaaraya isigii saaxiibadiisii ayaa halkaas joogay kuwaasoo isku day in la hadlo laakiin cidna lama hadlayo maxaa yeelay wuxuu ardaygu sareeyo fasalka xitaa ma uusan jeclayn saaxiibo yeesho dhanka kubad weyn ee ku dhacdo xiro ciidan markii iskala yiraahdo legion waa mar in la toogto qiiq ayaa meel u baqariyay in dhawaaqyo la yaab leh halkaas ka bilowday kadib waxaana la tusiyaa macallimada iskuulka oo ardayda natiijooyinka fasalka u qaybeynaysa yonja ugu horeeyay fasalka kadibna wiil labaad iyo gabar taasoo hel madaxda fasalka telefishinka waxaa ka hadlay wasiir sheegay waxbarashada ay la socdaan tababar ciidan lagu bixin doono dhammaan iskuulada ardayda diyaar u ah jaamacadaha galaan waxaasoo dhan waa u muhiim iyaga hadda macallimada fasalka dhammaan ardayda waxay siinaysaa fooman ciidan oo ah in waalidiintoodii laga saxiixo say waalidiintoodii ogolaasho ugu bixiyaan macalinka wuxuu foomka u qaybinaya kadibna u baxay laakiin waxay u muuqatay walwal kadibna yangu wuxuu ku dhacayay wiilka oo fasalka joogay kaasoo aad ugu masiirsanaa hadda wiilka oo fasalka joogay daaqada ka arkay militariga yimaadeen iskuulkooda ma ardayda way arkeen waxayna bilaabeen ka fikiraan wixii dhici doona fikirka ardayda wuxuu foomkii waalidiintii ku buuxiyeen guryahooda wiilkii yonja la dagaalamay fasalka jooga wuxuu wiil aad u xun xitaa maru inuu tababarka ciidanka uu qaato laakiin hooyadiisii waxay ku khasbaysaa inuu hadda aado subaxdii dhammaan ardaydii waxaa laabtoodii soo xirxirteen waxayna yimaadeen iskuulka sababta hadda waxay iskuulka sugnaan doonaan lenji wuxuu yimid fasalka wuxuuna isku baray dhammaan ardayda wuxuu noqon doonaa madaxooda tababarka wuxuu sidoo kale ardayda fasalka u sheegay in dhaqanka ardayda iskuulka lagu dhaqmayaan iyo sida ugu danoolin dhammaan waxaa lagu xisaabin doonaa darajooyinkooda qof walba inuu si fiican tababartaa ilashii ka dhaqaalo kala duwan ayaa loo qoondeeyey laakiin dhammaantood way ciyaaraya wayna ismaansanayaan marka la eg waxay u muuqanaysa in xiiro ciidan u yimid sida xero xagaaga ah ihii waxay ku raaxaysanaya iyagoo isqarinaya kadib waxaa timi askari dumar ah oo gabdhaha dhammaantoodii canaanta waxayna ku amartay in albaabka xiraan in waxay dhammaantoodii u qaada koronka halkaasoo shaqadii ugu horeysay tababarkooda ahayd in qoryaha ay qaataan laakiin dhammaan ardaydii waxay ku ciyaarayaan iyagoo haysta sidii carruurtii oo kale markaas luujan ayaa canaanta dhammaan ardaydii wuxuuna yidhi waxaad ula ciyaaraysaan si alaab curureed oo kale kani waa hab aad u baran doonaan sida loo rido oo noloshiinii ku badbaadin doontaan kadib tababarkoodii adag ayaa bilaabmaya ma ardaydii waxay ku dadaalayaan tababarka qaar carruura aad bay ugu faraxsanaa laakiin qaarna way ooyayeen waxay yidhaahdaan marabna halkaan sii joogno waxaan rabaa inaan gurigeynii ku noqono waxaa sidoo kale laga mamnuucay in telefoon la keeno laakiin isla wiilkii diidnaa inuu yimaado tababarka ciidanka wuxuu si qarsoodi u watay telefoonkiisii wuxuuna tusinayaa dhammaan ardaydii fiideo hore kaasoo muujinaya sidii militari u dili jireen dhammaan xayawaanka markay dhammaantoodii arkeen mid kamida saaxiibadiisii ayaa yidhi ani waa wax dhacda keliya markii faris magaalada ku faafo xayawaanka horista dhan waa la dilaa saysan dadka u weerarin taasi waxay la micnanta in dagaal uu soo socdo markii yonjo ka baxay qolka askari loojin ayaa yimid wuxuuna ku yiri ma bixi karta keligaaga sidaani waa ina halkan joogto oo qabataa wax kastoo laga rabo halkaas yojin wuxuu u sheegay linji wiilkaasi kaasoo telefoonkiisii watay loojin aad ayuu u canaantay markii yojin uu baxay isiga wax walba sheegay wiilkii ayaa ka
daba yimid si uu uga argoosto sababta loo qabtay telefoonkiisii. Intii taasi sii socotay kubad weyn ayaa timid waxaana kasoo baxay bahal aad weyn. Wuxuu qabtay Yonju wuxuuna bilaabay inuu si tartiiba u cuno. Bahalkii wuxuu sidoo kale rabay inuu qabto wiil kale laakiin Lujin ayaa yimid wuxuuna badbaadiyey. Markuu arkay bahalkaasi wuxuu markale isku bedelay kubad. Markii macalimadda ogaatay arrintan aad bay u walaacday. Lujin wuxuu macalimadda u sheegay inay qarin doonto arrintani. Bahalkii kasoo baxay kubad oo cunay ardayga haddii qof kale ogaado dhammaan dadka aad bay u baqi doonaan waxaana dadka oo dhan u sheegi doonaa Yonju in gurigiisii ku laabtay. Halkan waxaa ka arknaa Lujin aad ugu lulsan wax uu xasuustay waxaana la tusiyaa muuqaal hore kaasoon ku aragna bilowgii taxanaha markii militarigii markii ugu horeysay ay weerareen kubadaha waaweyn. Bahalaha dhis ayaa kasoo baxay kuwaasoo dil iyo dhiig fara badan sababay. Sarkaal badan oo ciidan ayaa halkaas lagu dilay weerarkii Lujin. Lujin sidoo kale wuu ogaa in bahaladaasi halis yihiin. Halkan waxaa ka arknaa macalinkii warka maqashay raadiyaha. Sidoo kale 30 kubadood oo weyn ayaa kusoo dhacay dhulka. taliyihii militarigiisina aad buu ugu xumaa arrintani wuxuuna hadda amrayaa dhammaan ardayda in la baro sida qoryaha loo rido. Waxaan wajahaynaa khatar aad u weyn. Ardaydii sidoo kale waxay ogaadeen wax walba. Waxay tababarkoodii kaga daaleen si aad u daran. Waxayna fasalkoodii ku hurdeen markii macalimadii aragtay xaaladooda. Aad bay ugu naxday tababarkoodii maalin kasta uu ku sii adkaanayay. Halkan wiil ayaa dareemay in qof uu garaacayo ku isbadbaadiyo uu cararo. Wuxuu arkay baalkii weyne hortiisii taagan kaasoo raba inuu cuno laakiin intaysan sidaas dhicin wuxuu toosay. Taasina waxay la micnayd intana ahayd riyo. Maalintii xigtay imtixaanka ayaa laga qaaday dhammaan ardayda. Lujin wuxuu bilaabay inuu isku xiro qoriga. Ardaydii si fiican imtixaankaasi ugu gudbeen laakiin gabar ayaa ahayd mid aan ku guuleysan karin si qori isku xirka ay samayso. Subaxdii lafiidkii isku dayaysay laakiin weli ma aysan awoodin. Taasi darteed dhammaan ardaydii waxay aad u canaataan laakiin halka Lujin wuxuu u sheegay dhammaan ardaydii inay sidaas oran qof walba keligiisa ma dagaalamayo. Dhammaan waa koox waa inaan taageernaa saaxiibkiinin daciifka ah. Haddii ay sidan sameyn dhammaantii waa dhiman doontaan. Ilmo dhammaan waxay u dhaqaaqayaan qolka cuntada. Wiil ayaa ka hadlaya gabadhaas wuxuuna yiraahdaa waa inaan hadda barnaa waxay tan tahay qaban karin. Dhankal kubadihii ay kasoo baxeen bahalka uu cunay Lujin. Daab weyn ayaa loo sameeyey hareerahooda si haddii bahal qalaad markale kasoo baxo aysan cidna waxyeelo u geysanin. Dibna militariga waxay dhammaan ardaydii u kaxeeyeen koobtii rasaasta lagu ridayay. Markii dhammaan ay magaalada dhex marayeen waxayna arkeen magaaladoo dhan ay bannaan tahay. Cidna ma aysan arkin maxaa yeelay militariga waxay dadkoo dhan u kaxeeyeen meel ammaan ah. Dhexda jidka waxay arkeen dalool aad u weyn ah oo kubadii weyne bulbulka ahayd ka dhacday. Markii dib u soo noqday Lujin wuxuu arkay wax walba uu kula yaacay jidka wuxuuna dareemay in khatar soo dhowdahay. Wuxuuna u sheegay dhammaan ardaydii in cidna ka dhaqaaqin halkuu taagan yahay. Wuxuu la aaday askartiisii si u baaraan meesha hadda sababta Lujin meesha loo joogin ardayda. Labadii wiil waxay fursad ka heleen waxayna kala dukaanka si cunto soo iibsadaan. Markii macalimadda ogaatay arrintaasi waxay la baxday Lujin si ay hadda u baaraan. Kadibna dhammaan ardayda way kala firxadeen. Waxaana jirtay gabar meel kaligeedii ku socotay. Markii isku day inay qabato qori dhulku yaala waxay la kulantay gacanku oo markii aragtay aad bay u boqod wayna qaylisay. Dhammaan ardayda ayaa yimid dhiigaya meel walba yaalay. Dhammaan aad bay uga baqayeen markii macalimadda wax yar sii socotay. Arday ayaa joojiyay oo yiri waxaa laga yaabaa in bahalkii cunay Lujin halkan joogo. Markii qof walba wuxuu maleynayay in gurigiisii u aaday laakiin dhammaan hadda waxay ogaadeen xaqiiqada. Dhammaan ardaydii aad bay uga maqan geeridaasi si lama filaan makhluuqaad yar halkaas yimid. Macalimadii waxay u sheegaysaa inay ka cararaan meesha waxayna bilaabaysaa inay rasaas ku furto laakiin makhluuq ayaa si naxariis darro u dilay macalimadii. Askartii halkaasi timid waxay la dagaalamayaan makhluuqaadkaasi waxay sidoo kale dileen askari kale qortiisii jidkiisii kala go'ay. Markii ay carareen dhammaan waxay kala yaaceen qaarna waxay isku xireen gudaha suuqa laakiin makhluuqaadka halkaas ay joogeen. Markii wiil carray gabar ayaa lugta qabatay badii dhaawacantay waxay ka codsatay inuu caawiyo laakiin intuu taasi dhacay makhluuqaad ayaa yimid oo dilay gabadhii hor loo arkay taasoon awoodin in qoriga hagaajiso. Waxay orod ugu timid suuqa markii saxday hadii albaabka xirtay. Taasi waxay sabtay in noloshoodii ka badbaadisay makhluuqaadkaasi. 3 gabdhood oo ordayay si ay naftoodii u badbaadiyaan. Mid ka mid ah makhluuqaadka ayaa qabtay. Markii ay timid askarkii
dumarka ayaa badbaadisay, laakiin makhluuqaadkii waxay si xun u dileen askarkii dumarka ahayd. Markay aragtay tan gabadhii aad bay u baqday, waxayna isku xirtay gudaha baabuur. Markay saaxiibadeedii u yimaadeen iyagoo ku yiraahda albaabka gaariga naga fur, waxay aad ugu baqday xitaa albaabka gaariga ma furto. Hadda saaxiibadeedii kale waxay aadeen boodka telefoonka si ay noloshoodii u badbaadsadaan, waxayna isku xireen gudaha. Makhluuqaadkii ayaa halkaas yimid kuwaasoo isku dayay inay jebiyaan muraayadda. Gabadhaasi waxay shibkan u siiday sireenka dhawaaqyadaasi awgeed makhluuqaadka ayaga u soo jeedanaya. Dhinaca kale arday qaar ayaa ku dhuumanayay dhisme, arday kale halkaas ayuu ugu yimid. Hadda waxay u go'aansay saaxiibadoodii kale ay baadhaan. Dhinaca kale labadii wiil cuntada u baxay waxay si degan u fidhiyeen iyagoo cunto cunaya. Xaaladda banaanka ka jirta waxba maysan ka ogeyn. Hadda marka ay maqleen dhawaaqyada qoriga waxay u baxeen si ay u fiiriyaan makhluuqaadka waddada kasoo hor muuqday. Markii hore makhluuqaadkii wuxuu u muuqday mid cunto ah, waxayna bilaabeen in la ciyaaraan, laakiin makhluuqaasi si lama filaan ku weeraray. Arday qaar ayaa ku xiirnaa qaybta baabuurta la dhigto, arday kale ayaa halkaas yimid si uu u helo. Wuxuu ku yiri ila kaali, laakiin way diideen. Waxayna ogaadeen in noloshoodii khatar ku jirto banaanka. Makhluuq ayaa halkaas yimid, hadda waxay la kulmeen isaga. Gabdhihii boodka telefoon ku jiray loojin ayaa iiga badbaadiyey. Markii makhluuqaadka u damcay loojin uu weeraro, gabar hore ugu fiicnaad bartilmaameedka ayaa makhluuqaas dishay oo badbaadisay nolosha loojin. Ma ardaydii hadda waxay isku yimaadeen isla meeshay markii hore kula lumeen. Markii ay arkeen meydka askarta iyo macallimiinta way murugeedeen, waxayna bilaabeen inay ooyaan. Loojin wuxuu u sheegay runta, wuxuuna ku yiri badaha aad ka warqabtaan hadda waxay gudaha ku hayaan makhluuqaad yaryar oo cuna dadka. Idinka waxaad tababar ku qaadanaysaa inaad la dagaalantaan iyaga. Marka ay maqleen tan qof walba wuu murugooday, kadibna dhawaaqyo baa halkaas ka dhacayay. Qof walba wuxuu u mooday in makhluuqaadkii dib u soo noqdeen. Markii loojin qoriga halkaas ku fiiqay waxay noqdeen labadii wiil cuntada doonanayay. Dhammaan waxay isku soo noqdeen iskuulka, halka ardaydii kale tababar ku jireen. Way la yaabeen sida xaaladoodii ahayd, maysan ogeyn waxa ku dhacay. Halkan waxaana la tusiyaa flashback loojin muuqaal hore sarkaal hore u sheegaya in halka bado kulliya makhluuqaad badan ay ka buuxaan, ay ku dileen badha ciidan. Waa maxay markay kubadahaasi dhammaantoodii hal mar weerareen? Maxaa dhici doona? Maxaysan samayni karaan? Waana in ardayda iskuulka dhigata tababaraan. Markaas loojin ugu diiday, wuxuuna yiri mar inaan halis gelin nolosha carruurta waxba kalabsan, laakiin wax kaloo ay sameeyaan ma aysan jirin. Waxaana markan kusoo laabanaynaa waqtiga hadda, halkan dhammaan ardayda walwal ku jiraan, waxayna ogaadeen in noloshoodii halis ku jirto, waxayna rabaan in guryahoodii ku noqdaan. Loojin ayaa yimid wuxuuna u sheegay in magaalada dhan faaruq tahay, waalidkiinii waxaa loo qaaday meel ammaan ah, xitaa anaga ma ogin halka kubadahaasi magaalada ugu soo dhaceen. Marka halkiina waa meesha ugu ammaanka badan. Waxaana la tusiyaa shaybaarka ciidanka, halkaasoo lagu tijaabinaya makhluuqaadkii yaraa. Waxayna ogaadeen in makhluuqaadkaasi yarka lagu dili karo qoriga anuriumka ah, waxayna ogyihiin is waxba qaban karin ku waaweyn. Habeenkii dhammaan ardaydii waxayna go'aansadeen inay halkan ka baxaan, waxayna doonayeen inay banaanka u baxaan waalidkoodii raadiyaan. Laakiin inta ay socdeen wiil baase waxaan sameeyey. Loojin wuu ogaaday wuxuuna u saaray madaxa hoose ciqaab ahaan. Markaas kadib ardaydii ma aysan joogsan, markay ku faafiyeen iskuulka noloshoodii khatar ku jirto, waxay yidhaahdeen waan dhimanaynaa. Taasi darteed dhammaan ardaydii waxay isku soo baxeen, waxayna codsadeen in la fasaxo. Halkaasii ku dhammaanaysa qaybtiinii koowaad. Halkaan nala soo gaartay aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u saacadno qaybta labaad. Haddaba muuqaalka like saar, channelka subscribe hadduu hore subscribe ku weyn. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Gambaleeka furo si ay kuu soo goorto qaybta labaad. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Maanta halkan waxaan kasii wadi doonaa taxanaheennii noo sii socday aynu ku dhammaatay qaybteennii koowaad markii ardaydu isku yimaadeen banaankeena cusub in la fasaxo. Askartii waxay isku dayeen inay joojiyaan, waxayna ku yiraahdaan dib ugu noqda gudaha sababtoo noloshiina waxay ku jirtaa khatar. Laakiin si lama filaan kubad weyn ay halkaasi kusoo dhacday. Gudaha kubadaasina waxaa kasoo baxay makhluuqaad yaryar oo dadkii weeraray, waxayna bilaabeen
inay dadkii si xun u dilaan. Askartan waxay ku yiraahdeen ardayda dib ugu laabto gudaha, laakiin kahor intaysan gudaha gelin makhluuqaadkii waxay hore u dileen arday badan. Kuwii qoriga haysto keli ayaa badbaaday. Arday iyo askar badan ayaa lagu dilay weerarkaas makhluuqaadka. kuwii harana waxay isku xireen iskuulka gudihiisii, waxayna aad ugu ooyeen geerida saaxiibadood. laakiin xitaa gudaha iskuma aysan haysan meel ammaan ah. makhluuqaad kale ayaa kusoo jooday. Legend wuxuu yiri in ardayda hore ku qaada gaari weyn halkaas ku baadgareeyo. markii dhammaan ardayda gaariga fuuleen, gabar baa silmi filaan u dhac markaas makhluuqaadkii baa yimid oo si xun u dilay. dhammaan waxay ka murugoodeen geerida gabadhaasi. Legend wuu istaajiyey gaariga, laakiin sarkaalka sare wuxuu ku amray in la sii wado sababta ma doonin nolosha kuwa ku halis gelino. magaalada waxaa nala tusaa iyadoo meel walba dab qabsaday. magaaladii gebi ahaanba way burburtay. hadda 2 gaari ayaa kasoo baxay iskuulka. mid ka mid ah wuxuu qaaday ardaydiisi ammaan ah, waxayna u qaaday xero ciidan kale. markay halkaasi gaareen ma aysan helin saaxiibadood kale, kuwii oo gaarigii kala saarnaa. kadib waxaa nala tusay gaarigii kale oo darwalkiisii waxaa dilay makhluuq. gaarigu wuxuu rogmay mid ka mid ah saaxiibadood si xun u dhaawacmay. markii ardayda fiiriyeen khariirada, meeshii la rab in loo qaado waxay ahayd meel aad u fog. laakiin sida ku cadday khariirada meesha aad bay u fog tahay, rugna laguma gaari karin. hadda maadaama mid ka mid saaxiibadoodii u dhaawacmay, waxayna go'aansanay halkaas iska joogaan sababta waxay dareemeen in khatartu halkaas ku yar tahay. halkaas xero ciidan kale ardaydii kale oo kala walsanaan saaxiibadood waxay u yimaadeen Legend iyagoo ka codsanaya in la raadiyo. ardaydii gaariga rugmadii saarnaa waxay yarkeen guriga habeenka saaxdaan. dhammaan waxay ku heshiiyeen halkaasi aadaan, laakiin kahor intaysan aadin waxay jidka ku calaamadeynayaan falaaro si haddii qof uu raadinayo si fudud u helo. Legend xerada wuxuu la hadlay sarkaalka sare si uu u badbaadiyo ardayda, laakiin sarkaalkii wuu diiday wuxuuna yiri howlaha hadda yaal maaha muhiim. Legend aad u corooday wuxuu aaday taliyaha weyn, wuxuuna u sheegay in sarkaalkii sare uu doonayo in halkan iska joogaan oo aysan badbaadin ardaydii kale. laakiin taliya wuxuu yiri may waa inaan badbaadinaa. wuxuuna aadayaa mid ka mid askarta oo lahaa furaha gaari weyn, wuxuuna kala hadlayaa furaha, wuxuuna si dhuumalaysi ugu soo qaatay. wuxuuna furaysiiyey Legend si uu ardayda uu badbaadiyo. markii ardaydii kale xerada joogtay aadeen, waxay doonayeen in hadda Legend la socdaan. gabadhii dhaawac ahayd waxay u baadigoobeen daawo guriga wayna heleen. xilligaas gabar baa halkaasi ka heshay baakad jibiski oo ay rabtay inay cunto, iyadoo damac ka gala iyadoo si qorsooda isku qarsatay baakadka jibisiga si aysan cid kale u helin. gabadhii jibiski qarsanaysa oo cunaysay waxay aragtay muuqaal si qorsooda ku fiirsanayay. markay taasi aragtay way carartay. ardaydii kale ayagana bilaabay inay cararaan. markay arkaan iyadoo cararaysa waxayna isku xireen gudaha guriga, waxayna moodayeen inay ka badbaadaan makhluuqa. laakiin makhluuqii wuxuu isku dayaa inuu meel walba kasoo galo guriga, waxayna isdejiyeen iyagoo isle waa hal makhluuq oo keliya. halkan dhammaan waxay isku xireen qol guri ka mid ah, laakiin daaqadii halkaasi ahayd way jabsatay. markaasi armaajo hordhigeen si ay u xiraan wadadaasi si aysan makhluuqaadka ugu soo gelin. laakiin Legend oo baabuurka raadinayay wuxuu maqlay sawaxan ka dambeeyay. waxay ahayd ardaydii kale baabuurka la socotay, iyagana waxay la socdeen si ay saaxiibadood u raadiyaan. Legend wuxuu diiday wuxuuna u sheegay inay dib ugu noqdaan xerada, laakiin way diideen. waxayna yiraahdeen maya, marnaba ma noqon doono, waxaan rabnaa inaan saaxiibadeena aan raadino. Legend aad buu ugu farxay geesinimadoodii. dhinaca kale ardaydii guriga ku xirneyd midkood ayaa arkay baabuur, wuxuuna sheegayaa in ay meesha uga bixi karaan, laakiin wuxuu ogaa in makhluuqaadkii guriga meel uu ku dhumanayo. haddii ay sabaxan sameeyaan makhluuqaadka wuu dili doonaa. mid saaxiibadood ee si degdeg ugu baxay guriga, wuxuuna keenay furus iyo daaqad ugu furo uga baxo qolka. waxayna filim ka daareen qol kaloo guriga ah si ay sabaxankaas makhluuq u raaco. waxay dhab ahaantii u kaxaynayeen makhluuqa. markaas si degdeg daaqadii u fureen wayna ka baxeen, laakiin makhluuq wuu caqli badnaa wuuna fahmay. wuxuuna bilaabaya inuu dabagalo. waxayna ogaadeen inaysan dhammaantood ka bixi karin meesha, qof baa halkaasi joogay suu u hero. waxayna isla gartay in laga tago gabadhii dhaawac ahayd, laakiin iyaduna marab inay halkaasi ku herto. markaasi ciyaar sameeyeen, qofkii qaata Allah ugu yaray halkaasi joogi doonaa oo la dagaalami doonaa makhluuqaadka, intii kalena way bixi doonaan. wiil baa gacanta ku helay ul yar, laakiin wuu qari sababta wuu ka baqayay haddii uu muujin isaga laga tegi doono. markaas wiil kale baa soo baxay
baxay wuxuuna yidhi anigii halkan jooga idinka iska baxa. Dhammaan way ka xumaadeen laakiin way iska baxeen. Makhluuq ayaa wiilkaasi dabagal isiguna wuxuu ordayay si uu noloshiisii u badbaadiyo. Markuu wiilkii makhluuqa ka cararayay isla wiilkii u caawiyay baa yimi, wuxuuna makhluuqii ku qaboojiyey baraf sababtoo wuxuu ogaa makhluuqa lagu qaboojin karo barafka. Labadoodii waa wiilashii markii hore suuqa cuntada u raadinayay. Legion wuxuu halkaasi la yimid ardayda halkay calaamadeynta falaaraha ka sameeyeen, waxayna gartay in dhammaantoodii meel u dhow ay joogaan. Markii dambe labadoodii farxadoodii ku soo laabanayeen, makhluuqii baa mar kale ku soo booday, laakiin Legion ayaa soo gaaray oo badbaadiyey. Gabadhii si fiican u bartilmaameedsan jirtay ayaa makhluuqaas ku dishay qorigeeda. Dhammaan way isku farxeen markay mar kale is helaan. Legion wuxuu dhammaan ardaydii u celiyay xerada ciidanka. Markay xerada ciidanka gaaraan, taliyaha aad buu ugu farxay inuu arko. Taliyihiisa wuxuu aad u canaantay Legion maxaa yeelay wuxuu aaday inuu badbaadiyo ardayda iyagoon ogolaanin. Laakiin maadaama ay dhammaantoodii badqab ku soo laabteen, waxba kama oran Legion. Saraakiisha way ogyihiin inuu yahay askarigii ugu geesiyaha badan. Si tartiib ah dhammaan ardayda waxay bilaabeen inay jeclaadaan deegaanka. Dhammaan aad bay iskugu faraxsanaayeen, waxayna aad ugu ekaayeen askar dhar ciidan wataa. Dibna waxaa nala tusiyaa shir ciidan. Waxaa la sheegay in dhulka ay yaalaan kubado badan oo makhluuqyo badan ay ku jiraan. Waxaa la dagaalami doonaa nus ka mid ah makhluuqyadaasi waxaa dilay ciidankeena, laakiin askar badan ayaa sidoo kale ku dhintay dagaalkaasi. Saraakiisha waxay Legion ku amreen inuu qaado dhammaan ardayda iskuulka si uu u geeyo goobaha makhluuqyada si ay ula dagaalamaan. Markii ardayda ogaadeen inay dagaal u socdaan, dhammaan way argixeen. Ardayda waxba ma cunaynin, mana saaxin karin si fiican, waxayna xasuusinayaan noloshii hore sidii noloshii ugu faraxsanaan jireen, quraac, waxbarasho, hurdo iyo ciyaar. Laakiin hadda noloshoodii way isbedeshay. Legion iyo taliyaha ayaa yimid, dhammaantood waxay moodeen in Legion u yimid inuu canaato, laakiin taasi maahan. wuxuuna u sameynaya cunto macaan. Wuxuu ogaa in qofna si fiican u cuni karin xaaladda adag cunto. Ardayda way faraxsanaayeen, dhammaantood way la ciyaarayeen. Legion wuxuu halkaas ku sheegay inuu garin muddada dagaalka makhluuqu socon doono, laakiin wuxuu u balqaaday inuu ka tegi doono ilaa uu ka neef baxo. Markay tan maqleen, dhammaantood waxay dareen qaadayeen. Dhammaantood waxay diyaar u hayeen inay subaxdii safraan. Legion wuxuu siiyey dhammaan ardaydii qalab oo ugu warmin qalabkan ka warbixinaya inta makhluuqa meesha ugu jiro. Markay magaalada gaareen, waxay arkeen gaadiid badan oo burburay wadooyinka. Halkaas bay ka heleen qaboojiye ka cabeen cabitaan qabow. Dibna waxay dareemeen in wax agtooda yaalaan. qalabkoodina wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo. Mid ka mid ah ardayda ayaa toora gaaray ciyaar halkaasi yaalay. Makhluuq ayaa bilaabay inuu dhawaaqa raaco. Dhammaantoodii waxay rasaas fureen oo way dileen, laakiin qaar makhluuqyada ka mid ah waxay galeen guryaha oo ay dhuunteen. Waxayna u dhaqaaqeen guryahaasi si ay u baaraan u dilaan. Markay guryaha baarayeen, waxay heleen askari haweeney hadda aad u dhaawacan, waxayna halkaas ku qarsanayeen muddo aad u dheer. Dhammaan waxay badbaadiyeen, waxayna xerada geeyeen. Legion sidoo kale halkaas wuxuu ka helay askari kale, wuxuuna iyaga badbaadiyay. Dhammaan ardaydii waxay iskugu keeneen meydkii saaxiibadood gabadhaasi, waxayna ka fikirayeen haddii tani iyaga ku dhici karto, maxaa dhici doona, badbaadi karaa mise. Markay dhammaan fadhiyeen oo cunto cunayeen, gabadhii dhaawacnayd ee istaagtay qorigii qaadata, waxayna isku dayday inay disho, laakiin gabar kale ayaa timid oo joojisay. Gabadhii dhaawacnayd aad bay u hoos, waxayna tiri saaxiibadeed aniga ayaa igu dhinteen, waxay iga codsaday inaan caawiyo, laakiin anigu waan ka caro, nafteydii baad badbaadsaday. Hogaamiyahoodina wuu naga tagay. Gabadhii joojinaysa ayaa tiri haddii aniga meeshaan ahaan lahaa, waxaa laga yaabaa aniga sidaas yeeli lahaa. Legion ayaa meesha yimid. Gabadhii dhaawacayd waxay carootay, waxayna qorigii ku qabatay Legion, waxayna tiri adigu waxaa la mid tahay, adiga waa naga dhaafi doontaa si hogaamiye kasta oo kale, maxaa yeelay hogaamiyayaasha sidaas bay sameeyaan. Markii gabadhii sidaas tiri, waxa ay riday xabad. Markaas yaa taliyihii sare isku hordhigay Legion. Xabadiina waxay ku dhacday garabka taliyaha, laakiin noloshiisii khatar kuma jirin. Xabaddu waxay ku dhacday garabkiisii oo keliya. Legion hadda wuxuu aadayaa inuu la kulmo taliyaha. Taliyuhu wuxuu leeyahay inaysan gabadhaasi waxba galabsan, waxaasoo dhan waxaase hogaamiye adiga kaa horreeyay. Kadibna Legion wuxuu u tagayaa dhammaan ardayda, wuxuuna ku yiraahdaa dib ugu laabta xerada ciidanka, wuxuuna leeyahay mas'uuliyaddeeda
ujeedadeyda ugu weyn waa inaan idinka nii badbaadiyo. Ma rabo in noloshiinii khatar u gasho aniga darteeda. Ma rabo in qof idinka ka mid uu malayn in hogaami idin dayacayo. laakiin hadda ardaydii wuxuu ogahay haddii ay dib u noqdaan oo makhluuqa dilin, Legion wuxuu heli doonaa ciqaab adag oo ka timid taliyaha sare. hal gabadh oo Legion dareen u qabto waxay rabtay inay u sheegto wax qalbigeedii ku jira, laakiin way xishootay maysan u sheegin. markay qolkeeda ku noqotay gabdhihii kale waxay weydiiyeen, laakiin gabadhii waxay u sheegtay inay u malaynayso inay u sheegi doonto markay xerada ciidanka dib ugu laabtaan. dhinaca kale gabadhii toogashada fiicneed waxay aragtay makhluuqaad imaanaya, waxayna u sheegtay dhammaan in bartilmaameedka xiga makhluuqyada ay tahay xeradooda. dhammaantood waxay go'aansan inay dib ugu noqdaan xerada oo ay ciidamo kala keystaan si ay ula dagaalamaan makhluuqaadkaasi. laakiin qaar ka mid ardayda waxay yidhaahdeen haddii aan dib ugu laabanno waxay nagu noqon doontaa ka hor dambe. markaasay Legion taliya aad ugu farxeen, waxayna aad ula yaabeen si ardayda u caqli badan yihiin. waxayna qorsheen wax walba qarax laga dhigi karo, waxayna ku dayin doonaan dhammaan halkaasi makhluuqyada jooga. markaas bay qarxin doonaan dhismaha oo dhan. kadibna waxay ogaadeen makhluuqyada isla xiriiraan. Legion wuxuu u sheegay dhammaan kooxdiisii inay haystaan 10 daqiiqo oo keliya. wax kastoo ay qabanayaan waa inay ku qaataan 10 daqiiqo gudahooda. waxayna sameynayaan sawaxan badan si ay makhluuqaadka ugu yeeraan. mar waxay jebinayaan muraayadda baabuurta, marna waxay wacayaan sireniska. taasi waxay keentay in makhluuqyada ay soo aadaan dhismaha. intaas dhexdeedii makhluuqaad badan ayaa yimid. ardaydii walxaa qaraxa dhisayay Legion ayaa u yimid, wuxuuna ku yiri waa inay shaqada degdeg u dhammaysaan. wuxuuna taliyaha ku jiri in ardayda uu geeyo dhismaha kale, laakiin ardayda ma rabo inay tagaan iyagoon Legion la socdin. waxay dareen qaadeen, laakiin taliyihii wuu badbaadiyey, wuxuuna geeyey dhismo kale. laakiin markuu Legion isku dayay inuu baxo, wuxuu arkay makhluuqyaad badan oo hareeraysan. waxay ahayd mid aad og in la badbaadiyo Legion, sidoo kale aad buu u dhaawacmay. Legion wuxuu si xun u godoonsanaa dhismahaasi, wuxuuna u sheegay dhammaan kooxdiisii dhismaha kale inay qarxiyaan walxaha, laakiin ardaydu ma rabo inay qarxiyaan. dhammaan way ooyeen sababta nolosha Legion khatar bay ku jirtay, wuxuuna ku go'doonsanaa dhismahaasi. qofna ma rabo in Legion uu waxyeelo ku dhaco qaraxa. gabadhii jecel Legion waxay la hadashay iyadoo adeegsanaysa qalabkii isgaarsiinta, waxayna tiri ma naga tegi kartid, waxaa noo ballan qaad inaan naga tegi doono ilaa daqiiqada ugu dambeysa. laakiin Legion wuxuu yiri wax kale ma haysto, wuxuuna dimi qalabkii isgaarsiinta kacmihii taliyaha waa ay gariireen, isagana ma doonayo inuu qarxiyo. laakiin markaas uu arkay makhluuqaadkii ay bilaabay inay kasoo baxaan dhismahaasi. gabar geesiyad ayaa u dhaqaaqday qalabkii fogaanta hagaajinta bamka. makhluuqyadii waxay hadda gaareen meeshuu Legion joogay, waxayna hayaan kuwo islamarkiiba doonaya inay weeraraan. waxaana aragna dhowlcadeyntii ugu dambeysay wejiga Legion. bamka ayaa qarxay gudaha dhismaha, waxaana qarax aad weyn ka dhashay. dhammaan ardaydii aad bay u ooyeen markay arkeen qaraxaasi. taxnihiinii maanta wuxuu ku dhammaanay iyadoo nala muujinaya muuqaalkaas murugada leh. aad iyo aad baa u mahadsantahay saaxiibayaal haddii halkaa nala soo gaarteen. waxaan isku dayi doonaa inaan isoo khalaasiyano taxano kale aad u xiiso badan. intaas la gaarin doono intaasi ka dhiman, waxaan kaa codsinay muuqaalka la noogaratina kan subscribe aad dhahdo. hadduu hore subscribe kuwen waxaan kaa codsinay kambaleyka furtay kuu soo gaaraan muuqaalo aad u xiiso badan. aad iyo aad baa u mahadsantahay.